akhyaartayada aanu jecelahay guud ahaantiin marka hore waad salaamantiin aynu ku bilownay warbixinteena fadhi ay ku yeesheen xildhibanada golaha wakiilada Soomaaliland xarunta baarlamaanka ayaa markaasi waxa ay ku meelmariyeen oo ay ku ansixiyeen xeer hoosaadka ay ku hawlgalayaan waana kan gudoomiyaha golahaasi Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ku dhawaaqay natiijada ay ku meelmariyeen xeerkaasi xeer hoosaadkoodaasi هذا القرآن في هذا القرآن كطابعات أريد أن تكون معنا أول مرة وعندنا سيدا الاحتمال السوشيالي كان أوصل حراسات كواحد مدروني برضو بروح فرمي واحد من استقال إنه خصوص لها يسدد واحترام مرة ولا تفرق كريه ولا كشيء إنه مهما غيره قريات في نجوم الدنيا يا هوش أيضا يروح الدنيا وإن البلد يقلل كبرامين يعني مكبر أمي بين محيالها وما هو كليه يقول هو ماريو أريد أن يكون معنا كستوى كلها يتعرفتي هاي يوم قدر كلها يكون معنا waxay muujintii meel soo gaarsiiyeen guddiga Soomaaliyeed inta waxay isla qaadanay inaynu la furro oo ka doorno oo aynu ka wadsano laga yaabo ay raashay doodooda ku biiriyay arrintaasi markaa istaa u timid awlaaga suuqyada badanyihiin xeerka ku caddahay markii loo baahdo in la hormarin karo oo saxnado meel ay soo jeedin karto إلا وصار وحكبت إلى مكانيس لوصل إلى حراساتك لو يكيد وراها نقلها قولي كأنه قبل هاي تمام تبين له حد بينه سوتشيرين حبوا بجاه إن ما دام دود ذلك كبر حسيني سيا المغض والله يسوى الله يسترى عصيو سوتشيرين هاي راح كشف دون هذا يا فلوس نوينا وحنا حاجة سيرة يا مواضيع هاي اللي ما نقول على وكيلها يا رئيس الشرير يا أبي كاي ساعة بدين يوصل بيه شغل ويني يوصل نقول نعمله أو سيرات الله يقولين نعمله هذه ما نقول اللي ما هي اللي ما نقول عن شيء جدي ولا يوصل شيء كذا هاي وين يا هذا زاوية حديدي عرض حلبان وحتى مستقبل عنده تاجين حل حلبان وأنا كنت قريبا وكان مصيب سيدة كذا يشرب غويه شريف الضوات الأمور ودوري ونمو عليه خير ونسلا سبحان صح وحاكمتي ومعرفة مرة حبني بودقاها ولا تركيا مسؤولية الشرعية والمعاملة عقلوا معاملة اللي ما نبي ساعدوا لها إذا يقولوا لا أقول احترامي يقولوا لي ينتقوا على يسوع مخصصي إذا كان كل الدولات كرو تسكورة طول كرو الدول هذا الجروب ممكن يكون هو بقدر وحيوان إلا يكون الله كفاره وحي كفاريسا وحلا أقول ما يسوع الله أقول ما يسوع عفين أقول ما يسوع إنك سائكي أركيه ولي ومشيك لكنك كرهليا والمسؤولين شخص على هاي إنسان صاحي وقوله فدي هذا أكيد سفوق العوة اللي ما بفرق غير وكيل وشكاس أو برنامج شرعي وصوب كبير هاي هذا كل صحيح يسوق العوة مركز المكان لما يسوق وحمعه يروح عمادي يذكر معين وروح الله روح عدد وراء هي أفكار الله بين فكرة دولانه أليات معلومة طبيعية ضليات شغلها وعرضينها خلص شيء بين هاركي ورئيسنا بقالنا فوق بانه ولمحيا خلص سبحان الله ليس وعلى ورثنا قديان الجوها أو قديان ما تفعل خلص بيني وعرضينها ضبطوا حلوانه وعلى وين البابين المسلمين وقال ترك عيسى وهو كخدت كلا يفوق على سوق الجديد فوق سوق قرية هاي
Baraha gobolka uu ka soo baxay xisbiga uu ka soo baxay guddiga uu dalaynayo oo ka yeelaba iyo CP-ga iyo aqoonta qofka si ay milyaneer waxaa lagu ogaado sababta uu u dalaynayo inuu guddiga iyada xubin ka noqdo waxaa la leeyahay dhammaan xildhibaanadu CP-yada iyo rasuulkeen aad iyo aad u mahadsan yihiin inay ka buuxiyaan wixii talagelyo u baahan mar walba uu masix furanahay laakiin waxaan rajaynayaa inay dulqaada isugu dulqaadato qof waliba waxa uu dalaynayay heli maayo waxaa sababa qaadaya si shiku hadda oo aayaadka qur-aankaa ku bilaabay ilaa cadaalad intii la helo fattaqullaha mastatactum intii la awoodi karay ilaahayna ku adoonsaday inaan sameeyo haddii ilaahay qalin noqdo caadista guddidaas iyo guddiyada aan isku dayo waxaan rabaa guddiyo productive oo soo saara oo dalka u fudeeya inay noqdaan waxaa lagaga rabaa majority iyo maxaa qofku gaagaarnimo badan oo siyaasadeed baa lagaga filayaa waxqabad badan baa lagaga filayaa hawshan inay maanta kaga dhammaato dabadeedna sabti axad ugu dambaynayno hawshan kalena ku finalisgarayno maalinta sabtaa waxaynu gudageli doonaa ajidaheedii shaqaynu gudageli doonaa ilaa idinkii waana laydin soo gudbin doonaa oo bogga goruhu leeyahay baa laydin ku soo gudbin doonaa ajidaha dikahayidno waxaynu ka talagelayno inkastoo aan jecelahay in magacaabista guddida iyo doorashooyinka guddoomiyeyaashooda si business committee ay qayb uga noqdaan ablaablaynta iyo kala horumarinta ajendaha inoo yaala ay qayb uga noqdaan laakiin wix qorshe aynu maalinta qabanayno waxaan rajaynayaa waxa weeye magacyada guddiga kuwa xeerka lagu ansixiyey mar walba waa guddiyadaas marka qof walba xeerka saddexda guddi soo qor haddii la raalli ka noqdo kadib aynu gulagalno magacaabistii guddiyaduba iyagaa u madax bannaan inay doortaan structureka aynu isla qaadanay ee ah guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen waxaana la shaqayn doonta xoghayn gaara oo ka mid ah shaqaalaha golaha waxaana la shaqayn doona la taliyaal sharci oo u dhexeeya guddiyada haddii la idmo iyo technical team iyaguna ka caawin doona hawlaha ay qabanayaan iyo shaqooyinkooda haddii la idmo ilaatan aynu dadejino annaguna waa dadaalaynaa bisha 11 kowdeeda iyo labadeeda oo ku beegan maalin saalisa arbaca iyo khamiis waxaa jiri doona maxaa la idhahdaa aqoon isweydaarsi ama seminaar guruhu geli doono uu ku geli doono marka gaadhin oo ay wadi doonaan dad expertise ah uu gaari doono maxaa la idhahdaa nin South African ah oo khabiir ku ah arrimaha golayaasha iyo shuruucdooda iyo aqoonyahan kale oo reer Somaliland ah oo iyaguna ay ka mid yihiin dad aqoon sida xeerarka iyo dastuurka dalka waxaan rajaynayaa waxaynu ahay golo cusub waxna way ugu soo noqonayaan oo dowladeedii badbaaya banaanka yaalay waxay Soomaalidu qaarba waxay rabtaa guriga wax ku maamaan labaatan jir mid joogay ilaa wax la qarinin social media maadaama uu jiro warhoy rogow layoo wax qarinin waxaad meesha halkaa ka odhanaysaan dad gola waa saymee waxay u baahan yihiin waayeelnimay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin hadalkaaga waa la qiimaynayaa waa la fuguraya waxaa laga yaabaa maalmaha qaarkood 2 milyan oo qof inay daawadaan waxaad ka moodaa si baa laynoogu soo jeedaayo dadku hadda shaqada ugu badanaya waa dhegaysiga golaha warka inaga baxaya war miisaamaha noqdo war mawduuca maalinba aynu taagan nahay khuseeya ha noqdo oo aan khaarij mawduuca ahayn oo aynan ka bixin hawshii iyo shaqadii aynu qaadanay si aynu waqtigana u marxino hawsha aynu kamarka ahayn inaan uga midhabalino iyada laftigeeda qof walba waa la miisaan baa la saarayaa oo bisaylkiisa shaksiga ah aqoontiisa garashadiisa dulqaadkiisa waxtirkiisa ragga halka fadhiya waa rag ummadu soo dooratay oo la rabo wixii maslaxad caama markay muuqato inuu wax ka tegi karo marka uu doodiisa soo gudbinayo inay gobonnimo ka muuqato oo hadalkiisu waa hadal gobonnimo leh oo aan leexleexad lahayn oo aan cid xaganayn inuu cid wax yeelayn inuu noqdo laga bilaabo aniga labada guddoomiye ku-xigeen iyo dhammaan xubnaha xildhibaanada ah ee golaha fadhiya dhammaantiinba marka waxbaa inagu soo noqnoqonayo oo doodaa ka soo noqday maxaa lahaa social media waxaad moodaa yaanay meel baynu taagannahay
hadda bid bay taagana hadda to halkii u sareysay uu taagana hoosayno celinina aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa Allah idin karaameeyo way loo xidhayaa goluhu aad iyo aad u wanaagsan dhankiisana gudoomiyaha guddidii markaasi ka soo shaqeysay xeer hoosaadkaasi ee golahaasi u egmaday ayaa mudanayaasha uga warbixiyay qaabkii ay uga soo howlgaleen xeer hoosaadkaasi oo ay in muddo ah ka soo shaqeynayeen waana kan xildhibaan cabdilaahi muuse oo markaasi arrintaasi faahfaahin dheer ka bixinaya Baraha batuun oo ka mid ahaa mudanayaashii markaasi wax ka beddelka iyo gaabista ku soo sameynayay isla markaasina golahaasi ka mid ahaa guddi uu egmaday xeer hoosaadkaasi ayaa sharaxaad ka bixinaya ka guddi ahaan qaabkii ay uga soo shaqeeyeen xeer hoosaadkaasi maanta goluhu ansixiyay sidii wax looga bedeli lahaa ama wax loogu qaabi lahaa wax looga dhammaantiin aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa sida wanaagsan mugga leh ee qof waliba isugu taxallujiyey inuu isku dayo in maaragtay xeer hoosaad dhammaystiran oo anfaca oo aynu ku maamulo gudaheena uga soo baxo aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa dhammaantiin sida ka warhaysaan howlo fara badan oo kale ay noo yeelaan way ka mid tahay in 3 casharooyinka training la sugayo oo training kaloo yana ka mid ah ajandihii aynu ansixinay maalintii dhaweyto oo isaguna inaynu u gudagalo muddadaynu haysanaana waa muddo bil inaynu dhammaan ku koobno howlahaas oo dhan waxaan filayaa iminka wixii aan hore u soo qoray iyo intii aad ku darteenba nuqulada laydin qaybiyey ayay ku jiraan runtii maadaama ay 40 qof ka hadleen wuxuu noqday buug dhan buu noqday buugga hortayda ayuu noqday wixii contributionkii aad soo darteen inta badan waxay ahayd qodobo laga wada hadlayay uu qofba si uga hadlayay uu faahfaahinayay hase yeeshee wuxuu xukumaad isugu imanaya qodobo kalena way jiraan oo ay mudanayaasha qaar ka hadleen oo aan mudanayaal fara badan ka hadlin sidaa darteed waxaad noo suuro geli weydeen waxaa laali wixii ministkii aynu niri oo dhan inaan xeer hoosaadka ku soo darno hase yeeshee waxa aanu qaadanay qodobadii ugu muhiimsanaa ee xildhibaanada 40 ay ka wada hadleen ay isku raaceen badidooda ayaa halkan soo kordhiyay runtiina haddaynu isnaahno dhammaystira xeer hoosaadka ma dhammaystiri karno waayo mar walba gaabuu jiraya laakiin waxaa inoo furan inaynu mar walba dee update garayno oo wixii kolba inagu soo kordhaa waynu ku darsan karnaa wax lagu dari kara weeyaano xeer hoosaadka waxay naga xidhan maaha sidaa darteed maadaama waxaasoo hawlayna sugayaan waxaan soo jeedin lahaa maadaama kubiyadu wada haysataan inaynu mar wada ansixinno ama aynu cutub ansixinno si ay howlaha kale aynu u gacan furano oo aynu howlaha kale u galo raggii fara badan halka ka wada shaqeynaynay runtii saaka waanu saragnay aad baan u naaqishnay culayska fara badan leh haystii howlaha aynu kusoo socdaa awgeed waxaa muhiima inaynu maanta aynu go-aan ka qaadano si ay hawsha culuse nagu soo foda ay noogu dhaqato marka wixii aan ka tegey xildhibaan barka batuun yaa insha allahu tacaala isaguna isla dhinaca soo jeedinta soo habeynta waa aniga oo Ciid Rusul Daya khayr isma dhaafno